madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa maanta daahfuray adeega hal goob ee loo yaqaano Misob oo ah adeeg casri ah oo lagu horumarinayo nidaamka bixinta adeegyada dadweynaha isla markaasina lagu fududeeynayo helitaanka adeegyada dawliga ah. munaasabada furitaanka waxaa ka qayb galay mudane Aklili Tadase wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha mas'uuliyiin sare oo ka tirsan xukuumadda deegaanka iyo marti sharaf kala duwan. adeega Misob amaba one stop service waxa uu door weyn ka qaadan doonaa casriyeynta adeegyada yareynta caqabadihii ka jiray helitaanka adeegyada dawliga ah iyo xoojinta kalsoonida u dhaxaysa dawladda iyo shacabka waana adeeg mideynaya adeegyo kala duwan isla markaasina u sahlaya muwaadiniinta inay si degdeg ah oo daahfuran hal goob ay ugu helaan guud ahaan adeegyada muhiimka ah ee ay u baahan yihiin. madaxweynaha ayaa khudbad uu ka jeediyay munaasabada ku sheegay in adeega Misob uu yahay tallaabo muhiim ah oo lagu dardargelinayo adeeg bixinta bulshada isla markaasina kor loogu qaadayo qanacsanaanta loo adeegaha. adeegyada hadda la bixinayo hadda meesha diyaarka ku way badan yihiin adeegyo fara badan oo aad u baahan tihiin way bangiga way baasaboorada kuwii hadda dakhli bixinta kuwii xafiiska cadaaladda ganacsiga shaqooyinka noocan ah ay kala daadsana hal meel lagu soo ururiyo waxa aad weyn oo wanaagsan weeye waxaan rajeynayaa in wax badan ay ka bedeli doonto muxuu ahay qanaca shacabka la xiriira dhinaca adeeg bixinta. magaalada Jijjiga kuma koobna hawlahani inkastoo Jijjiga ay tahay meesha ugu baahi badan uguna shacab badan ilaa iyo 13 magaalo ayaa hawsha laga hirgelinaya. waxaan rajeynayaa casharka halka laga barto in la sii badin doono oo la sii faafin doono isagana mustaqbalka hadii la yiraahdo. waana bogaadinaya dhammaan intii ka soo shaqeysay hawshaas ugu horeeyay madaxweynaha ku-xigeenku mudane Ibraahim Cusmaan oo isagu ahaa guddigii hawshan loo diray qofkii hogaaminayay waqti badan geliyay marwo khadra iyo intii kale la shaqeysay dhamaantood aad iyo aad ugu mahadsan yihiin shaqada ay qabteen iyadoo wali hawshu qaybo ka midii ay dhiman yihiin adeegyada oo rajeynayno in bisha gudaheeda soo dhameystiri doono haddana qaybihii la bilaabay ilaa iyo hadda waxaa ka faa'iideystay dad kor uga badan ilaa 2,000 oo qof ayaa ka faa'iideystay taasoo muujinaysa baahida shacabku ay u qabaan adeegan. waxaa markaa aan ka codsanayaa dhammaan shacabka oo dhan wax dhaqameedka iyo hogaaminta cid walba inay xooga saaraan sidii aan u sii adkeyn lahayn nabadgelyada si aan u sii xoojin lahayn midnimada. geestooda waxaa munaasabada ka hadlay wasiirka xafiiska adeega shacabka ee dowladda deegaanka Soomaalida marwo Khadra Bashiir iyo maarayaha Soomaali Misob mudane Cabdullaahi Cali. xaruntan Misob ee adeega hal goob waa xarun muhiim u ah dowladdeena iyo xisbigeena. waa tallaabo muhiim ah oo qaadno oo tallaabooyinkii horumarka oo kamida taasoo keenaysa inay caqabtirto bulshadeena adeeg hufan inay hesho inay baahi kala duwanaa iyo cabashadii bulshadu qabay ay ka caqabtirto. Misob waa xaruntani waa initiative-ku ra'iisul wasaaruhu hindisay initiative-kaas oo dalka oo dhan markii la isku daro 79 xarumood hadda gacanta lagu hayo 20 xarumood oo xaruntiina dowladda deegaanka Soomaalida kamid tahay xariga maanta laga jarayo 20 xarumood baa dalka hadda ka shaqeynaya. deegaankeena markii laga reebo xaruntan maanta xariga ka jarayno 12 xarumood baa laga fulinaya hadda hawshooda lagu jiro si lamidana xariga jar loo sameyn doono haddii alla nafta ku sumo. mudanayaal iyo marweyn maanta waxaynu halkan joognaa inaan daahfurno xarunta Soomaali Misob oo loogu talagalay in la isugu keeno adeegyada xafiisyada ku kala baahsan oo hal meel la isugu keeno si ay muwaadiniinta iyo shacabka ugu fududaato adeegii ay meelaha kala duwan u doonan jireen inay hal meel ka wada helaan. dabcan waxa xaqiiqa in ay dhinaca adeeg bixinta dhalin badan ka jireen heer dal iyo heer deegaanba isla markaana hindiisa u leeyahay ra'iisul wasaaruhu lagu qorsheeyay in la sameeyo xarumo adeega la isku soo dhaweynayo si muwaadiniinta iyo macaamiishu ay uga baaqsadaan rafaad fara badan ka dhaca deg iyo progressiyad shaqo oo inta badan ay dib ku mudan jireen. taasaa dhashay maanta xaruntan aan daahfurayno in la aasaaso. 8 bisha kadxana amaba maskaram ay kala fadhigoodii saddexaad gulaha fulinta dowladda deegaanka Soomaalidu ku ansixiyeen xeer nidaamyeedka maamulka miisaaniyadda iyo kheyraadka ee Misob oo 3 bilood gudahood maanta la daahfuray. qorshahani ayaana lagu ballaarin doonaa guud ahaan magaalooyinka deegaanka.